السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا خيارتا qiimaha iyo sharafta leh kusoo dhawaada muuqaalka la xiiso badan. Muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa insha Allahu tacaala sidee ayaa loo samaystaa bangi account ee loo yaqaano magaciisa Buyer la dhaho. Bangigan account oo ka caawinaya lacago badan oo aad online-ka ka samaysatid inaad ku kala xawilatid oo aad ugu kala dirsatid bangiyada caalamka. bangigan waa bangi badanaaba international yani wadamo fara badan ka shaqeeya. Marka insha Allah kusoo dhawow bangiga iyo sida loo samaysto buyer account ayaan doonaynaa inaan sameyno. Marka kusoo dhawow muuqaalka oo dhammaystiran fadlan like saar muuqaalka, sidoo kale subscribe saar channelka, sidoo kale balka furasay muuqaalada kusoo gaaraan isla markiiba aan soo gelino. waran waxaad tegaysaa Chrome-kaaga aad tegaysaa markaad tagtid qayb search-ka aad ku qoraysaa bangi magaciisa aad ku qoraysaa buyer aad ku qoraysaa buyer account ku qortid qaabkan ay kugu soo baxayaa. Marka website-ka aad booqanaysaa qaabka markuu soo baxo waxay wax iska soceli. Marka laba midkood ayaad sameyn kartaa inaad create account tiraadid oo ku dhufatid marka step-yu ku soo saaraya marka halkan ayaad email-ka gelinaysaa ugu horeyn. kadib email-ka ugu horeyn marka soo gashay halkan ayaad imanaysaa. halkan markaad timaadid halka waxaad ku qoraysaa email-kaaga ayaad ku qoraysaa. marka email-kaaga marka halka qoraysid halkan aad gelinaysaa email-kaaga ugu horeyn. kadib marka email-kaaga qaato create account ayaad dhahaysaa kadib wuxuu ku soo gudbinayaa step-ka labaad ama code kugu soo diray email-kaagii. code-kii ayaan soo qaadanaa insha Allah. code-kii ayaan soo qaadanaa yani code-kii ayuu noo soo dirayaa. code-ka marka soo qaadatid copy soo dheh. code-ka marka soo qaadatid halkan ayaad paste ku dhahaysaa. halkan marka paste ku create account ayaad dhahaysaa. marka step-ka labaad ayuu ku gudbinayaa. marka wuxuu ku siinayaa password iyo secret code ayuu ku siinayaa sidoo kale account name ayuu ku siinayaa. marka waxaan oo dhan iska baabiinaysaa oo mid adigu leedahay ayaad samaysanaysaa sidoo kale password cusub ayaad gashanaysaa. password-ka waxa inuu ka koobnaado magac iyo lambar inuu ka koobnaado. kadib waad ku celinaysaa halka lambarka repeat password ayaad dhahaysaa. repeat password markaad tiraadid sidoo kale secret code-kaaga aad kuu soo diray aad arkaysay aad gashanaysaa. halkana aad gashanaysaa. kadib halkana waxaad gashanaysaa magac saxa oo adigu leedahay. magaca sidoo kale waa inuu ka koobnaadaa xaruf iyo lambar. markaas markaad soo gelisid next ayaad dhahaysaa. password-ka ayuu inaga diiday marka kordhinaynaa 6 lambar ayaan ka yaraanayo inuu leeyahay. markaas insha Allah waa ka socday. marka halkan waxaad ku qoraysaa first name iyo last name aad ku kala qoraysaa. halkan magacaas iska qoro. halkanna waxaad iska qoraysaa marka magaca markaad soo qoratid halkanna waddanka ayaad gelinaysaa. sorry halkan laakiin waxaa ka raageliya hadda Soomaaliya joogtid ma ka helaysid Soomaaliya. marka Soomaaliya waxba ku wareerin kuma jirto oo kama diiwaan gashana buyer account kama diiwaan gashana Soomaaliya. marka wadamada kale ee waddanka joogtay ee Dorosa Algeria kadib dhan ayaad dhahaysaa. dhan markaad tiraadid yani qaabkan ayuu kugu soo baxayaa buyer account-kaaga sidan kugu soo baxayaa. marka lacagaha caalamka oo dhan ayaad ku kala dirsan kartaa bangiga lacagta lagu soo diray buyer account waxaad ku dirsan kartaa wadamo fara badan sidoo kale US dollar ahaan ayaa lagu soo diri karaa
Russian ahaan ayaa lagu soo diray, euro ayaa lagu soo diri karaa, dhammaan bitcoin ayaa lagu soo diri karaa, dhammaan lacagaha caalamka nooc kasta yihiin ayaa lagu soo diri karaa kana diri kartaa. marka dollar ahaan markaad doonaysa inaad dirtid halkan ayaad ku dhufanaysaa withdraw ku qoran tahay, kadib halkan waxaad gelinaysaa numberkii buyer account-kaaga numberkii ayaad gelinaysaa, dollar account-kaaga ayaad gelinaysaa numberkiisi, halkan oo kale lacagta ayaad gelinaysaa, marka send ayaad dhahaysaa caalamka meel kasta aad joogtid, saas ayaa lacagahaaga lagu soo dirayaa kuna dirsan kartaa. marka waa bangiga caalamiga oo yacni aad wax kasta isticmaali kartid oo caalamka oo dhan laga adeegsado. sidoo kale haddaad doonaysid inaad kusoo dirtid lacag waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay deposit ay ku qoran tahay, marka lacag yacni aad kusoo shubatid ayaad doonaysaa, marka lacagtii noocay tahay halkan aad ka gashanaysaa, noocay tahay visa card ma kugu jirtaa, master card ma kugu jirtaa, buyer account-kaaga yacni hadda visa card iyo master card waxay ka shaqeeyaan ilaa Soomaaliya way joogaan oo ka shaqeeyaan. marka lacagtii kugu jirta master card-ka buyer account-kaaga ku shubanaysaa, kadib caalamka oo dhan ayaad kaga gadan kartaa wax, marka waxaad ka dirsan kartaa, marka waad gelinaysaa lacagta doonaysa inaad ku shubatid buyer account-kaaga, saasna adh ayaad dhahaysaa, kadibna kugu wareegaysaa. marka waa bangiga account caalamiga oo yacni caalamka oo dhan aad kaga yacni shubika kaga samaysan kartid. marka muuqaalka taas ku talagalay insha Allah, muuqaalka dadka like saar, sidoo kale comment-ga nagula wadaag wixii aaraaya ama aad fahmi weyday kuwa adkaaday aan ka caawino.